maxaa ka taqaanaa taariikh nololeedka Dr. Abubakar Xasan Maalin waxaa la diyaara wariyaheena Mustafa Faransa. Dr. Sheikh Abubakar Xasan Maalin Kooshin Warsame wuxuu ku dhashay deegaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug sanadkii 1969 sanadkii 1975 Sheikh Abubakar Xasan Maalin isaga oo aad u daayir ayuu ka mid noqday dad dawladii Maxamed Siyaad Barre ay ka qaaday deegaankii uu ku sugnaa isla markaasina ay geysay deegaanka Jamumo dugsigii Quraanka Kariimka wuxuu ka galay isla deegaankaasi wuxuuna ka biiray dugsigii uu baraka ahaa Macallin Xasan Mucallim Ibrahim Sheikh Cilmi wuxuuna Quraanka u gaarsiiyay ilaa suuratu Sumar macallinkiisii kale Macallim Xuseen Dhuxulo ayaa Quraanka u dhameeyay xilligaasi oo da'diisu ahayd 12 sano jir sheekhi u horeeyay ee safiina u bilaaba Sheikh Abubakar wuxuu ahaa Sheikh Cabdullaahi Dheere magaalada Xamar ayuuna ugu bilaabay sheekhi ugu horeeyay ee u bilaaba ajrumiga wuxuu ahaa Sheikh Maxamed Biyamaalo oo hadda ku nool gobolka Shabeellada Hoose Sheikh Abubakar ayaa yimid magaalada Muqdisho isaga oo ku biiray xalqadii cilmiga uu ka aqrin jiray Allah u raxmade sheekhi caalimka ahaa ee Sheikh Xuseen Cadde Sheikh Xuseen Cadde ayaa Sheikh Abubakar ku wareejiyay Sheikh Hiloole Tifow waxaana uu aqrinayay inta badan funuunta mukhtasaraadka fiqiga iyo axaadiista Sheikh Abubakar Cabdullaahi Minhaaj ayuu Sheikh Abubakar Xasan Maalin ka dhageystay kitaabka Minhaajka iyo kitaabka Bukhariga Sheikh Maxamuud ayuu si muraajac ahaan ugu dhageystay kitaabka Minhaajka Sheikh Maxamed Nuur Mucallim Ibrahim Sheikh Bukhari wuxuu akhrinayay kitaabka Saxiixul Muslimka Sheikh Cabdullaahi Bakaalo waxa uu ka dhageystay qaybta sunanta ah Sheikh Abubakar ayaa Sheikh Nuur Cumar Absuge wuxuu ka dhageystay safriga iyo qayb kamid ah naxwaha sida kawaakibka iyo mulxa Sheikh Maxamed Saciid waxa uu ka dhageystay kitaabka Alifyaha Ibn Mali waxaana uu si muraajaca ugu dhageystay Sheikh Cabdullaahi Madoobe Sheikh Xuseen Sheikh Maxamed oo ahaa xerow Sheikh Cabdi oo Cumar ayuu ka dhageystay mandiqada Caroodiga balaaqada iyo amsiyada tafsiirka waxa uu qaybta ugu badan ka dhageystay Sheikh Hiloole sidoo kale wuxuu si muraajac ahaan ugu dhageystay caalimka Soomaaliyeed ee Sheikh Maxamed Macallin Xasan Sheikh Abubakar ayaa barashada cilmiga waxa uu u galay juhdi aad u badan isaga oo kala kulmay dhibaatooyin badan intii uu ku jiray barashada cilmiga isaga oo iiga cudur daartay in uu ila wadaago waxaana uu yiri nafta ayaa diidaysa ka sheekeynta dhibaatooyinkaasi aan u maray barashada cilmiga sanadkii 1989 ayuu si rasmi u bilaabay in uu mudarisay kutubada islaamka akhriya isaga oo ku bilaabay mawduca reer Sheikh Daawud oo ku yaala degmada warta nabada ee magaalada Muqdisho Sheikh Abubakar Xasan Maalin waa caalim mudaris ah oo kutubada ka akhriya masaajidada idaacadaha iyo TV-yada masaajidka Bilaal ayuu hadda mudaris ka yahay sheekha halkaasi oo ay kumanaan xirta ah wax uga dhageystaan cilmiga uu u akhriyo waase kali kuma koobneen kumanaan kale ayaa aalada tooska ee baraha bulshada ugala socota casharada sheekha waa qadiib khudbadiisa ay aad u xiiseeyaan bulshada Soomaaliyeed iyaga oo si toos ah khudbadiisa loogala socdo Sheikh Abubakar marka la sifeeyo waa shakhsi aad u cibaado badan oo aan dadka iskala weyneyn sheekha waxa uu aad u akhriyaa isla markaana wardi ka dhigtaa Quraanka Kariimka qaar ka mid ah qoyska sheekha ayaa ay sheegay in habeenkii inta badan uu u taagan yahay salaatul leyl xilliyada qaarna ay ku soo kacaan isagoo aad u oynaya dhinaca kale waxbarashada maadiga ah sheekha ilaa shahaadada PhD-da ayuu ka gaaray aasaaska waxbarashada ee ka horeysay jaamacad waxa uu Sheikh Abubakar ka soo qaatay degmada Kuntunwari ee gobolka Shabeellada Hoose jaamacadda Al-Culuum Teknolojiya ee Yemen ayuu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay isaga oo diyaariyay daraasada islaamka shahaadada labaad ayuu ka qaatay jaamacadda Umudurmaan gaar ahaan kulliyadda usulul diinka ugu dambeyn shahaadada PhD-da ayuu ka diyaariyay jaamacadda Budnaana ee dalka Suudaan isaga oo takhasuskiisa ka dhigtay tafsiirka Quraanka Kariimka
doctor sheekh abuukar xasan maalin hadda waa brofesor wax ka dhiga jaamacadda daaha waana isla gudoomiyaha jaamacaddaasi. sheekh abuukar ayaa alifay 2 kitaab oo muhiim kuwaasi oo kala caqiidada iyo sarfiga.